السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو يا صاحبي ومركلة يا مقال عصب مقال كنن ما نتوحن قال دونا سيدا لسكا حرو فيسبوك تاجز. هذا فيسبوك تاجز وحويان إن بروفايل كاي قف صور مقال أم وح إليه هيك وقصة تاجريو أديقون أوجين. هذا بدك كوتشير بروفايل كذا أما بدك فريندز كتير أوردن ويرك دونا waxa kamid noqon kara waxyaabaha lagu soo taageeraynayo waxyaabo dhaqan ama aan akhlaaqiyadkeena islaamiga iyo dhaqanka Soomaaliyeed midna aan waafaqsanayn waxyaabaha sidoo kale profile-kaagu wuxuu ka dhignaanayaa mid aan adigu go'aankiisa hayn oo qof waliba wuxuu rabo kugu soo taageeraysto haddaba intaan wali u fahansaneen ama u dhaanacsanayn Facebook si wax loogu taageerayo qof kale imika aan tustoona waxaan soo furan doonaa Facebook-geena imika waxaan ku jiraa account maxaan shafo qoran tahay marka Facebook kale oo maxaan shafo qoran tahay ayaan wax ku taageeranaya imika photo markaan ilaa sawirkan oo kale next ayaan oran doonaa haddaba imika marka sawirka halkan sareesaad ka arkasaan waxaan ku qoran karaa wax alaali waxaan rabo halka hoose waxaad ka arkasaan tag friends waa dadka ku taageeray rabtid imika ka u sareeya ayaan ku taageeran doonaa dan ay oran doona inta allaaliyo inta doonta ayaad ku taageeraysan kartaa dadkaas oo dhan profile-kooda si shakhsiyan ay uga soo dhex muuqan doona haddaan imika post yiraahdo sawirkiis la imika uu soo dhigmi doona waka maxamed shifo sweet maxamed shifo marka inta allaaliyo inta doontid ayaad ku taageeran kartaa imika haddaan maxamed shifaan kala gala imika midna camera soo taala midna sawirkayga marka haddaan imika soo galo wakaasad ka arkasaanba wixii u dambeeyay waa waxa oo anigu ma soo dhigin qofka kale ay soo dhigay ugu soo taageeray marka profile-kayga qaabkaas ay ugu soo muuqanaya haddaba sidaas iska xidhi lahayd marka iska xidhid waxa lagu siin doonaa rabitaankaaga oo marka alaaliyo marka qofsa wax kugu soo taageereeyo qaybta notifications ee Facebook ay ku soo dhigmi doonaa marka aad rabtidna ay oran doontaa ku dari doontaa adikan la remove laakiin adigoon ogolayn ma soo dhigi doono maanta kadib haddaba si aan u sharxano ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka Shifo official haddaba saan isku xirno waxaan soo furan doonaa Facebook-geena waxaan soo furan doonaa account-kii labaad oo ah kii markii hore aynu sawirka ku taageeraynay markaas taxadhibada geesta midiga la taaban doontaa hoos ayaad soo wadi doontaa settings meesha ay ku qoran tahay ka tagi doontaa settings marka halkan joogtid personal information waxyaabaha ku soo dhigayo hoos ayaad yar socon doontaa qaybta privacy ku qoran tahay ayaad eegi doontaa privacy waxyaabo badan buu soo sii doonaa marka qaybta saddexaad oo ah profile and tagging ayaad ka tagi doontaa haddaba versions badan iyo waxyaabo badan oo aad ka bedeli kartid Facebook-gaaga iyo halkan kugu sii doonaa waxaan tagi doonaa halka ugu hooseysa oo ah reviewing inaad dib u eegtid labada meelood imika sadarkasan waa off oo kuma furna oo markuu qofku wax ku soo taageereeyo isla markiiba wuxuu soo dhigmi doonaa wuxuu ka soo muuqan doonaa profile-kaaga labadaba waxaad ka dhigan doontaa on marka kala on ayaan ka dhigan doonaa haddaba imika markuu qofku sawir ugu soo taageereeyo ama waxaan video ama wuxuu allaaliyo wuxuu rabo igu soo taageereeyo aniga ayaa rabitaankayga la siinaya waxaan ku noqon doonaa Facebook-geena kale maxamed shifo si aan mar labaad isla sawirkii hore uu ugu soo taageereeyo bal inuu profile-kiisa si markiiba ugu soo dhex muuqdo iyan kale imika haddaan waa kanba profile-kaygan ku jiro haddaan imika profile-kayga taho waa kan sawirkii hore hal minta go ayaa lagu soo taageeriyay marka haddaan imika saddexaad dhibcood taabto oo aan I don't want to see yiraahdo remove tag yiraahdo remove aan ka remove gareeyo waka imika haddaan soo furto waan ka saari doonaa marka mar walba dhibaato ay noqonaysaa inaan ka saaro waxa lagu soo taageeray adigoon ogeynaya lagu soo taageerin karaa imika wax sawir oo ugu soo taageeray qofkaas imika ma jirto haddaba waan ku noqon doonaa sawirkii u dambeeyay imika waa kan Facebook-kii kale aan gelayaa isla sawirka hore ayaan mar labaad ku soo taageerin doonaa bal waxaan eegi doonaa inuu si automatically uga soo dhex muuqdo iyo inuu go'aan na siiyo sababtoo ah waynu iska xirnay halka photo aynu ka tagi doonaa
waa kan isla sawirkeen next oran doonaa waka tag friends maxamed shifo kan u sareeya dhan ayaan siin doonaa post aan oran imika waynu ku taagaraynay oo waka adiga maxamed shifo iyo labada maxamed shifo marka kii kale ee sawirkeen noo yaalay waka imika kii kale ayaan profile kale noo yiri doonaa waka wax allaaliyo wax soo dhigmay male sababtoo aqbalitaanka inaga in laga sugayo bal hadaba notification-ka in loo soo diraya nuuca uu yahay sideen ogaano saddex dhibcood geesta midiga la inta doonaa waxaan soo furan doonaa Facebook ee kale wax ku taagaraynay marka waka qaybta notifications-ka for message baa la ka u dambeeyay testing oo maxaan shafaka camera isu taala waa kan wuxuu leeyahay review posts you are targeting dib waxyaabaa lagu soo taageeriyay marka imika haddii aan rabo wax uu qanciyahay ad profile ayaan oran doonaa oo sidaas ay si toos u galmi doonaa profile-kayga haddii kalena qaladka ayaan siin doonaa haddii aan qaladkaas siin oo aad ka maqan tahay halkaas ay kugu sugi doonaa ilaa notification ka aragtid ma soo dhigmi doonaa bad qaladsiis imka qaladaan siin doonaa habkaana waan iskaga xidhay dhammaan waxyaabaha dadka Facebook and friends-ka ku naay ay ugu soo taagaraynayaan in aad iyo aad muuqaalkeena yara koobnaga faa'iideen sitana filaya intaas ay ku soo gabagabeyn doona muuqaalkeena fadlan haddii tahay boqoshada ka subscribe saar page-kana follow like nagu hirgel aad iyo aad baad maasna